عيال قبل عمان maanta oo aan dabaaldegan meeshaan ku qabanay Abu Bakar dabaaldegan oo soo abaabuleen banaadir youth club oo dad aad iyo aad ugu ololeeya xuquuqda shacabkooda reer banaadir waxaa kaloo meeshaan ayadana abaabulka xoog badan isbedeldoonka yani aan ka ahay gudoomiye ku-xigeenka isbedeldoonka waxaan soo bandhigaynaa musharaxiinta 2016 ee banaadir cusub ee u soo geli lahaayeen baarlamaanka waxaan u sheegaa shacabka Soomaaliyeed waxaan u sheegaa shacabka reer banaadir waxaan u taaganahay musharaxa baarlamaanka 2016 magaca banaadir banaadir waxa waa 49 qabiil 49 kaas qabiil wuxuu ka dhaxeeyaa 8 kursi oo baarlamaani ah ereyga la dhahayo kursiga qabiil hebelaal iyo qabiil hebelaal wax ka jira ma jiro ninka aan isku soo sharaxayn inuu banaadir yahay haddaba waxaan ka codsanaynaa shacabka reer banaadir ma matalo waxaan kaloo u sheegaynaa ummadda Soomaaliyeed waxaan aad iyo aad ugu hambalyeeynaa madaxweynayaasha maamul goboleedyada madaxweynaha dalka madaxweynayaasha maamul goboleedyada ra'iisul wasaaraha ra'iisul baarlamaanka dhammaantooda labada kursi aqalka sare ee baarlamaanka reer banaadir la siiyey sida sharafta lahaa ee loo siiyeen waa inay 8 kursi ee baarlamaanka annaga gacanta loo soo gelisaa muddo 20 sano annaga xur uma ahayn siyaasaddeena xur uma ahayn ciddaan rabna inaan dooranno markaan waxaan rabnaa ciddaan rabna inaan dooranno shacabka degmooyinkooda isku soo bixinno aan dowladda waxaan ka codsanaynaa 20 sano qof kursi hayn karaa ma jiro 20 sano waa burburkan dagaalkii siyaad bare wuxuu u dhacay waxaan leenahay dib ha loo xisaabtamo nimankii waa leenahay banaadir youth club dhalinyarada halgamaaga ah ee maanta magaca banaadir u taagan waxaan kaloo idiin sheegaynaa warxuma tashiirka oo ku jiro maanta shacabka halkaan iskugu soo baxay waa reer banaadir oo aan qabiil ka maqnayn qabiil kasta isku soo baxay annaga reer banaadir aan ku aftirsannaa ciddii qabiil wadda annaga qabiil ma naqaane shacabka reer banaadir waxa waaye maanta ciidda fadligiisa waxay ka faa'iidaysanaysaa banaadir youth club waxay meeshaan ku magacaabay gudoomiye ku-xigeenka banaadir youth club daahir maxamed raajis gudoomiyaha banaadir youth club saabateega abba aweys abba shariif salmaan iyo daahir amiin xubnaha ugu sasareeyo banaadir youth club aad iyo aad waxaynu kugu hambalyeynaynaa mataanaha aan noqonnay isbedeldoonka iyo banaadir youth club isbedeldoonka wuxuu u soo taagan yahay inuu shacabkiisa badbaadiyo banaadir youth club waxay u soo taagan tahay inay shacabkeeda badbaadiso beesha caalamka waxaan ka codsanaynaa kureysta aan xaqa u leenahay inna la siiyo si sharaf looga siiyo yaanan xoog iyo balaayo iyo jini loola adeeganin madaxweynaha dalkana waxaan ka codsanaynaa arrinkaas feejignaan uu lahaado bilaahi tawfiiq السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمة الصوماليين خاصة أمة بقى في البنادق. السلام يا سلامة الإسلام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا دمان مسكح دين وحاجلسين هرتو بدو غور وحاكو بشاري ستين دتك اللحظة الديوان وكلا غيبين ايو بين الهبل بين بيدين شاقين الديوان وحي كفديان مقع لدهايو بيلها بنادرية هدي إيجا إسكدا دعيان بيل جوفا هوساتين كفديان نفس الدون بين بيوشاقين بيلها بنادرية كفديان وح الله وحا وباهنا هدانو ناي بيلها بنادرية وإني إحنا وخطان هديسان وحنا وغبانين أمد وحنا وغبانيسا أو كرتي له علمي له عقلي له عيان هاينا ماشي إيجا نو بدلاي كرسي نو بنايان دولة الصومالية دولة وهوغانية مدحوينة حسن شيخ محمود وحنك حصنينا إنو تحقليو عد سيجارات بنادم سوابتها وحانا هاي أمة دولمن أمة سن إلى واتن سنة دولك اللي قد جيداي وحان ربنا حقاني إناد نوصود عزيز مدحوينة هذيك مستر جواري هي مدونة عمر عبد الرشيد هي باشا عالم كلمات دولة walaalkayga gudoomiye ku-xigeenka banaadir youth club Mr. Daahir Maxamed Raajis Daahir ku soo dhawaaw walaalaha reer banaadir youth club welcome عيد وناكسن سومالي وين عيد وناكسن gaarahaan shacabka reer banaadir horta waxaa jirta arrin la dhahayo dhalinyarada waxaa la dhahaa waxa tii mustaqbalka berito arrintaas been waay dhalinyarada mustaqbalka maanta waay annaga maantaan u baahannahay nolol iyo caafimaad maantaan u baahannahay inaan la tartanno dhalinyarada beesha caalamka haddii nala dhaho mustaqbalka beri aad tihiin mar walba nala dhaho mustaqbalka beri aad tihiin goormeen hormar gaarina dhalinyarada waa inay isku duubmaan dhalinyarada waa inay u kacaan nabadda dhalinyarada waxaa loo baahan yahay jiilka hadda jiro waaye ayagaa la rabaa inay bedelaan dadkan waa duqooween bedtaankooda waa dhammaaday xilliga ay bedeli lahaayeenaa la joogaa marka dhalinyarada waxaan ku waaninaa in ay isku duubnaadaan ay xaqooda dhacsadaan dhalinyarada gaar ahaan dhalinyarada banaadir aniga xilkaan la ii magacaabay ciyaar la ii magacaabay waxaan idinkula dardaarmaa inaa ila shaqaysaan si wanaagsan oo weliba aan waddankeena dalkeena iyo diinteennaba aan wada difaacno dhalinyarada beritumani tii maantaan nahay dhalinyarada beritumani waan ku celinanaya tii maantaan nahay aan dadaalno dalkeena aan dhisano dadkeena aan dhisano iskaaga wax u qabso aan ku dadaalno laakiin hadda waxaan u sheegaynaa ummadda reer banaadir meel kasta ay joogaan niman yahow 2016 maraynaa dhallinyaradaana laga sugaa mustaqbal iyo ayatiin yaanan fiirinin 2 qof oo 3 qofood inay lacag soo qaataan ay rabaan inay macnaha dad u walaaleeyaan teeda kale annaga xildhibaanada walaaleena ah nacayb annaga uma qabni hal midaan lehna waa daalantihiin maskaxda ka daasheen 20 sano kursigan saarantihiin dadka shacabka reer banaadir markaan u firaaqay idinkoo ilaahay ka baqaayo aan la jiidin oo aanan mudaaharaad iyo balaayada samaynin sharaf iyo karaama haddaa rabtiin kii Sweden ka imaadana ha ku noqdo kii Kenya ka imaadana Kenyadiisa ha ku noqdo kii harqaan tuli jirna harqaankiisa dib ha ugu noqdo fadlan waxaan ka codsanaynaa lixda xildhibaan mar kastana aan lahaa warnimayo waa daalantiin wax ma qaban kartiin adduunkana ma ka dhicin ra'iisul wasaaraha Ingiriiska 8 sano ka badan ma hayn karo madaxweynaha Mareykanka 8 sano ka badan ma hayn karo maanta adduunka kama dhicin 20 sano xildhibaan si ahaana laakiin annaga waxaan kala u sheegaynaa beelaha hawiye walaalaheena ah ee xoog loo adeegsanaa inay korosteena beenbeen ku bixiyaan sanadkan oo u dhimanaynaa waa lagu xiraa waa lagu baabiinaa waxaan u taagannahay dariiq kasta inaan ku raadsanno marka ummadda reer banaadirna waxaan leeyahay sidaas si ka daran waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaa banaadir youth club madaxdeeda ugu sarsareysay oo aad iyo aad kaalin weyn ka qaadatay arrimahan oo ayagana habeen imaano u taagan in ay shacabka reer banaadir badbaadiyaan
هبيني ما نقطع ونظم قناعيان إلهي ولكن عافمات الله سي شريك سلمان وحنوصل إن أفرافر فاتح عمرنا إلهي عافمات نوصي ولكن أحمد الشحلو وهبيني ما نفتي سمال في سنة وخسارنا شعب في البنادر ما أنت أقولنا إن البنادر وإحنا نغضان وحن أوجاتان البنادر وما أنت واحد اسمه صوب حوار البنادر مجرى واحد لها يا مورشو بندو رفقة شاشي وهذا ماتي في نقاس يا عني في نقاس كرسي الورادين جل لك هذا كرسي تنبضون الورادين أي كريستان البنادر اللي هو وصول تاعيهم لو وحن كعصنا حكومة دا سوماليا يباش عالم كوا كريستان البنادر شعب كودا أيها إذا تسدونا كعلون كودا وإن سشرف له قعنت الله وصالا. أما شريف وحن كويدينا وقتك سند وأفر سنة كستو وقتك الدورة السود واو إن بيلاها بنادر قبيل لو قيبي محاوعة. والله السنة دي هو حاجيلي جري أو منينا ويذكر البنادر كل يعلي جري وحاسمك عسل بنلوي شانشي بنلوي شانشي أنا حتى عقد أسوأ من سنجري لكن ما أنت مركز بدلدون قبل السماء وحكومي ووي بنلوي شانشي هنا ورالين ذلك وحن صارك عرسا أوفي زمان كستو نكاح كسعودة وأما التعسية خبير البنادر أسكول ما ساكن نكاح حنجري نيك وح نكاح هاي وحواها شانشي نيك أو كلا شيخ ماشي جوشة نيك كلا بنلوها مورشوا وح كلا مقنع مجري وعشان لما كان سياسيين تاع هم قولوا كل حلالنا ورلمين حرانها وكورننا رلمين حرانها سيننا لعجها أقادنا إنسان لعجها أقادنا إنسان وحاسكال الشعب كان أسكاله إذن كل حالة يمين إن نروح في عنكم ولا لا إذن كان بعوض قلت بدنا أكون ولا تاني شعب كان وابا بإنسان وحبرش العنا لكتين بوست استوديو هذا قبضتين وحكوسة ميسين ميل كستو ريلاكتيفين جيستين والله وبالله تلا سنة كان إذا كمية لأنه أنا رحت عمر شريف أهم كرفنتي إذا ما راح أقوتها أو بقالما أو لمنا ولا هو حرا أنت نديارة والله بالله التوفيق.